waxaa socda barnaamijkii ahaa hambalyada maalintan waa maalintii oo aan idhaahday haweenkaas 8 Maarso. Okay, waxaa qadka si toos ugu jira mid ka mid ah oo daawadayaasha ka mid ah ee Som TV Soomaaliya. Hello, assalaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaaga oo sida salaamaya Soomaali Som TV aadweyn ayaan salaam kaliya laaba shaqaalaha siinta Soomaaliya jooga aasaasa professor Naate Abshaqsheego maantiin waxaan awood ka maraya xafaliyo iyo salaam jiida inta waxaan rabaa inaan ka qayb qaato waxay waa sarkaal gacan baarahay oo saraakiisha hore ciidanka Soomaaliya haddana ku nool wadamada qurbaha gaar ahaan wadanka Faysal Ismaamka waxaan rabaa inaan u diro ka faa'iideysto maalinta muxaadara haweenka ee 8 Maarso ama 8 Maarso oo maanta ku taagan oo maalin weyn ah runta marka laga hadlo hablaha Soomaaliyeed ee lafdabarka ummadda Soomaaliyeed ku weyn ayaan rabaa inaan iraahdo xambaliyo waa inay barnaamijkan aan qabatay fiican oo dadkii Soomaaliyeed ay qabaan hablaha Soomaaliyeed qabatayna waa barnaamij oo baahan aad weyn marka hambalyadan ba waalidiintaada u diraysaa oo hooyooyinka hooyooyintaada maxaasaskaaga dhammaan dadka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ee joogaan gaar ahaan hooyadii aabahoodii oo joogta gobolada Soomaaliya aad weyn ay gaar ahaan hooyadii joogta Soomaaliya gobolada Soomaaliya iyo dhammaan hablaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba oo laga mudan shacabka xorriyadda mudan dhammaan Soomaaliyeed gaar ahaan wiilasha ay dhaleen Soomaaliyeed midka kale waxaan rajaynaynaa anagoo saa ka fiican ayagoo saa ka fiican nabad iyo xurmad ku nool qofkoodu nabad u yahay nabad ka fiican haysta ragoodu ay rag wanaagsan oo wadooyin ah dalkooda dhisanaya olaanta iyo xurmada xagjirka la diriraya oo hooyooyinkooda wada shaqaysanaya oo xarago ku nool ayaan sidoo Maarso sanadka inta kala rajaynaynaa inaan gaarno ilaahay idinkiisa aad weyn la salaamaysa maadaama oo familkaaga iyo friendiskaaga asxaabtaada badan ay joogaan Soomaaliya yaa salaam u diraysaa wallahi Soomaaliya ka asxaabta Allah ay wada salaamaya idinka Soomaaliya waa asxaabtayda weeye waa naafidii waana la soo xiriiraya hadii la yiraahdo tibiga waxa ay barnaamijyada marka aan qabanaysaa ugu soo dara oo Soomaaliya waa yaaragaan oo xoogaan ah wadada soo joogay Soomaaliya xaaladda taariikhdooda la socda marka sababkayga halkaas ku jira barnaamijyadiina waa fiirsadaa YouTube-ka waa ka fiirsadaa Facebook waa kala socdaa insha Allah marka soo barnaamijyada qabanaysa oo sameynaa hadii la yiraahdo insha Allah walaal waa maasantahay soo dhawaan kulay ugu dambeyntii maxaa u baaqaysaa hablaha Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal Soomaaliya maanta dhibaatada dhacayso burburkii iyo gaariga waxa soo wasqaynaya dhammaan aan uga xahay in badan baa ay soo gaaray waqti aan ka soo qabeen darkaas oo baad kaseen dadka Soomaaliyeed la furkeedii ay ku dhibaatada lagu geystay haday ay xafrad geerin haday xalaala xumo haday qabto colaad in badan baa soo martay oo faraxdo سلمكاس أو حلال أطور هواك الصوماليات وإن المدان دنتوضا وأهم حمد رئيس السنة اللي لها قرانمو بيسمالينو يقدر يربي عنا الدولة تطمع ولان كرو قارهان دولة برمجيزة هو قرية عنا ولان كران دول الآن فحيث بينا وإنا والمولوش دي ويه فرقو الله يدعان تسقصدا هو الدقالك سوين إياه هو اسكرحين إياه يقول رمضان كله يسوي بعد كذا أنا صواريخ بعدين وريه Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed ku soo foosaan waxaan mutuub buuraa inay ka qeybqaataan arrinta la haysto ayaga ay ku noolaan lahayn mustaqbal iyo horumar inta maanta ay ku noolyihiin ka fiican awad Soomaaliyeed insha Allah walaal waa maasantahay soo dhawaan ku leeyahay ذكر ما سنتين TV زمان TV آد إسلامية قرار حدث حتى قرار إشارة قبل الخريب جاء
وإن شاء الله يعني واحد يقدر بيسوي دكتور يوس دكتور يقدر بيسوي مع مصر الكوري ويانا غروب بدن وهذا مناسب فهي قربنا مع صبر على صبر ودي عاصمين وأنا كده أنا مركا وأيضا كنا نمي أنا مريض عن حساسية غروب بدن وكلهم مركا تصور مع الفلاش اللي كبير معقول أي مركا ودي فضل قصة صارين عمري لذا أنا كنت على القيام بدن ونكتب الصوماليين وكم مقدمة ومركا حساسية معقول هذا اللي مركا كده يعني جدران اليوم تكون ولا يعني أكثر الدنيا يا غروب دي ولكن هذا الموضوع هو تفرق أشواق أشوف شيء إذا ما وصلنا لما إلى علينا جاربا ولا نك ما نقول ولا يقرأ عن كيس كورونا كسونا أقول الصحافة الآن ما تصور إنه سافر ولا حمي لما يرجع يقول لك هذا يعني هي فرعين مرة ورجعني متفق عشان الله ولا كان جرايلا إن شاء الله لو ما سنت سودو هذا ما سنت kani waxa ahaa mid ka mid ah daawadayaasha ama taageerayaasha ee Som TV oo ku soo qurbo joogta gaar ahaan Ingiriiska ay naga soo wacay aad u mahadsan yahay wali waxa socdo barnaamijkii ahaa ee hambaliyada aan yiraahday 8 Maarso waa maalin aad farxasan halkan hambali u diraya hooyooyinka Soomaaliyeed hooyooyinka oo gabar habeenka waa qabna xaasaskeena way waa dhalna ayeen yihiin وحاول إن شاء الله هنبلي أذن لا يهاي خاصة بقردي دشتي هويدي هنبلي هم كلها يهاي واللي واحد صعب برنامج كي أها إسديد مارس هنبلي يدها وحقد كسيت وسوي جرا مت كمان أهدا ودش أما تغيرها Som TV Somalia ولا القصة لو تيا كSom TV Somalia أديكو هرمرنا يمجا عاجة أو صدحان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مجا عاجة صدحان والد الشيخ محمد يرى waxaan rabaa halkan inuu ambaliyeeyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee munaasabada 8 Maarso ee maanta ku aadan tahay haweenka Soomaaliyeed waxay wadadhaxaad u yihiin nolosha iyo wax walba oo maanta oo garab ah waayo haweenka Soomaaliyeed wadadhaxaad waxay u yihiin dowladnimada iyo u adeegida bulshada marka insha Allah waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad meel walba ay joogaan haweenka Soomaaliyeed waan u baleenayaa hambali okay hambaliyada ma habarta ma hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan u diraysa waxaan u dirayaa dhammaan hooyooyinkeena Soomaaliyeed aydoon aan kala qaadaynin waayo haweenka Soomaaliyeed waa hooyadeeni وحاوي عملوا يحمل مرة مر سدحات حنبليو ملول بيجوجان هولين كسوماليات وعملوا ياجر وجوجا. أوكي وما سنتا وقدم بنتي هبلها يكون دعوانا يان سومالي كنول أما ديوده هقول بجوجة يين حاو باقي لذا كما دمبسكي. عن باقي يا هذين كسوماليات ملول بيجوجان إن لو استاجو هذينك سيدي لو عامل لها سيدا حد ارتعنبه أتكون دقمتين يالا برا العاصمة دولة بلادك وفق قلبك وحاوي مرو هذينك يا وحاوي قدواتيسم مانتا اسبتالة وحاوي حدي فول اي قبطو ميل مانتا هذينك سلمالي لو دريالا ما جرتو بالشوين تسلمالي ميل البيجو وحالاي حيد هلا حوجيو سيدي هذينك Soomaaliyeed garab u siin lahaa sida haweenka Soomaaliyeed mustaqbalkooda iyo yooyinkooda la islaha loona hagaajin lahaa dal iyo dibad meel walba ay joogaanba okay walaal waa maasantahay soo waan ku leeyahay sidoo kale adaa mudan okay walaal waa maasantahay wili waxa socdo barnaamijkii ahaa 8 Maarso oo hambaliyada hableena Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh la soo dhaw وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لو كله برنامجكم أيه والله مجا عاجة أوصد عن إيميل أنا قصو بعيسو ويالك واد ما سنت هاي مجا جوا عبد القادر وحن كسرنا هاي مجال براوي جارهان هذا وحن كسرنا هاي السوق وين مجال حبات براوي هذا وين هاي صدوا بنان كذا لا زعتوا الو
waayahay walaalkii waa marantahay run ahaantii horta maanta waa maalintii markaasi waa maalintii habeenka kale leeyahay waxaan haddeertan aan ku sugannahay waa bartamaha suuqa weyn ee magaala xeebada Baraawe waxaana u jeedaa dad rag dhaxaa isdhaafsanaya kuwa qaarna ay leeyihiin haddeertan aniga suuqa haddaan reer ka soo baxay leeyihiin kuwa qaar markaan wax ka weydiiyo xaaladooda waxay leeyihiin haddeertan suuqa ka soo baxay mise markaas haddaan reer ku socdaa markaan ay falanqeeyeen waxay leeyihiin anigu maanta reerka dhara u dhaqaayo yiri mid kamid ah wuxuu yiri maanta reerka dhara u dhaqaayo yiri maxaa dhacay markaan wax ka weydiin wuxuu yiri reerka maanta maxay tahay waa maanta habeenku yiri maanta waa inay habeenkay nastaan nimanka ragga ay shaqeeyaan uu yiri waayahay ahay marka run ahaantii saaxib macaane maanta waa un aad u faraxsanahay magaalada waa la isdhexmaraya bulshada qeybeeda kala duwan oo isugu jira rag iyo dumarba markaasi waa loo dabaaldegayaa maalintii habeenka aad u weyn halo kaasi mid ka mid ah wuxuu ahaa daawadayaasha ama dhageystayaashu naga soo baxan barta WhatsApp aad iyo aad u mahadnaqeen insha Allah bal leeyahay marka la iyo mar saddexaad bal leeyahay okay soo dhawaada marka la gaayis wali waxa socdo barnaamijkii ahaa 8 Maarso oo hambaleeyaha hablaheena Soomaaliyeed halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا magacaaga oo saddexan iyo meesha naga soo baxayso walaal waa agaasimaha cusubtii Soomaaliya Baraawe Cabdulqaadir Maxamed Daawud Sabax aad weyn Cabdulqaadir oo ku soo dhaw barnaamijka waa dhawaay wakiil haye barnaamijka daa hore u gasho توسع المعرض برنامج كذا هو أقول قال شو أقول هاي برنامج شاء وسو أقول هو أقول قال برنامج كمان تبغى تسافرنا أوروبا أو ما أنت أوين كان سلا أدوين waxaan aad maashaan ugu hambalyeynaya dhammaan hooyooyinka hadlaha maalintan ay tahay maalin weyn ay tahay 8 Maarso waa maalinta haweenka adduunka oo dhan waxaan leeyahay hambaliyo okay marka waxaan rabaa inaan halkaan ka salaamo milkiilaha Som TV Abdulrazaq Umar Nuurani sheego iyo horwadeennada oo shaqaalaha ay ka mid yihiin Som TV sida wakiilkaali iyo wakiilkeena Xamar noo jooga Maxamed Carab iyo kaamirmaankeena Cabdiqaadir Nuuno iyo agaasimaha ku-xigeenkeena Cabdalla Maxamed Mukhtaar iyo dhammaan dadka daafaha caalamka joogaan dibadaha Afrika iyo khaasatan dadka ku nool degmada Baraawe ee caasimada dowladda Koonfurta Soomaaliya waxaan leeyahay hambali okay walaal ma santahay soo waan kulay ugu dambeyntii maxaa uu baaqaysaa hableena Soomaaliyeed aan u baaqayna hablaha Soomaaliyeed marka hore waa dad aad u wanaagsan waa hooyooyinkeena waxaan ugu baaqayaa inay isgarab qabtaan oo midoobaan okay walaal soo waan kulay ma santahay kani wuxuu ahaa agaasimaha Som TV Soomaaliya oo nagu soo wacay magaalada Baraawe caasimada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wali waxa socda barnaamijkii 8 Maarso ee hablaha Soomaaliyeed si video ku daawateen fadlan marka naga cusub tahay subscribe noo saar gambeeya kana waad furo kartaa wali waxa socda barnaamijkii ahaa 8 Maarso hablaheena u hambaleeya assalaamu calaykum walaal ku soo dhawaajina ka Som TV Soomaaliya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شويتين ما في عنك ما شاء الله أدنى كورن حال دار وفي عنك ما شاء الله سلام تي في وكله هاي ما شاء الله وأدي سلام يا أنا جو مارك هاي معمولي سلام تي في كلا سؤال لا لندن وعرب برنامج فينا نهمبليه ومع سنتين مجاي عبد الرزاق عمر waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto maanta oo halkaan ka salaamo dhammaan haweenka Soomaaliyeed maadaama ay tahay 8 Maarso haweenka Soomaaliyeed meel walba joogaan salaan iyo hambaliyaan u dirayaa haweenka waa lafdhabarkii ummadda Soomaaliyeed haweenka waa lafdhabarka bulshada waaye haweenka wayna dhaleen waa dhalnay wayna la dhasheen waa qabnaa ma sha Allah haweenka waxay naga mudan yihiin sharaf iyo cizo haweenka Soomaaliyeedna waxa waaye waxa ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed u qabteen waa wax aad iyo aad maaragtay u mudan in loo hambaliyay loo riyaaqo haweenka Soomaaliyeed ay dhageysanayaan meel walba joogaan waxaan leeyahay 8 Maarso hambaliyo dhammaantiin aad baan idin salaamaya
anoo magacayga ku hadlayay magaca bahda som TV muqdisho iyo baraawe dhammaan daafaha kale ee geyga Soomaaliyeed dhammaan hambalyaan idin soo dirayna insha Allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay raggu uu garto sharafta iyo wanaagga haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin ma sha Allah hooyaday waxaan u dirayaa hambalyo ma sha Allah hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo dhammaantood hambalyaan leeyahay anoo fursadaan rabay inaan ka faa'iideysto maadaama 8 Maaj lagu jiro degmada Baraawe gaar ahaan waxaan rabaa shacabka degmada Baraawe inaan la hadlo waxaan u sheegi lahaa shacabka degmada Baraawe ku dhaqan maadaama cudurka 8 Maarso oo hambaliyada hableena Soomaaliyeed alo assalaamu calaykum walaal ku soo dhawaadana ka soo TV Soomaaliya adigoo kormarnaya magacaaga oo saddexan imeesha naga soo waayso السلام عليكم وعليكم السلام ولا ku soo dhawaad channel ka soo TV Soomaaliya waan ku dhawahay ma garad ay magacaaga oo saddexan iyo meesha naga soo baxayso magacayga waxa la yiraahdaa Xaaji Muyo Shaqoon aan kala soo hadlayo Mareykanka Atlanta Georgia ma garad ay ku Xaaji ku soo dhawaad channel ka soo TV Soomaaliya waan ku soo dhawahay maanta waxaan u hambaleynayaa maalinta haweenka 8 Maaj waxaan leeyahay haweenka horumarka ay gaareen waxaan ilaahay ka rajaynayaa marka inta badan in haweenka ay gaaraan ma garad marka waxaan kale aad ugu faraxsanahay Sam TV sida oo wararka u tabiyo iyo meelaha badan had iyo jeer wararka wanaagsan ay ku baafiyaan aan kala xiriirno aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ma garad aad weyn waxaan kale oran lahaa marka in barnaamijka inta uu hadda sii marayo in ka badan la sii wado hore oo marka horumar wanaagsan la sii gaarsiiyo si oo markan Soomaaliya oo dhan markan oo degmo iyo tuul iyo gobolba ay sii gaaro oo markan oo Sam TV taas ayaan oran lahaa ilaahay ka baryayna ma garad insha Allah waan doonaa insha Allah warkayga halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa waxaan ka halkaan salaamaya dhammaan Soomaali weyn iyo dhammaan inta martan oo Baraawe hadda sugan deegaanka Baraawe ilaa iyo gobolada oo dhan waxaan leeyahay martan guul iyo horumar ayaan leeyahay intaas ayaan leeyahay ma garad insha Allah Xaaji ugu dambeyn asxaabta ku daawanaysa ahna hablaheena Soomaaliyeed maxaa uu fariin u dir lahayd waxaan fariin u dir lahaa in sida hadda ay u wadaan abaabulka iyo horumarka horumarinta wadanka iyo martan oo dhaqaalaha iyo businesska iyo martan nabadgelyada inay sii kordhiyaan taasaan oran lahaa ma garad insha Allah وما سنتها والله سودوان كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته